oo ku yaala degmada Shangani waxa uu ka mid yahay masaajidda leh taariikhda faca weyn maadaama la dhisay muddo hadda laga joogo qarniyo badan. Masaajidkan oo ku burburay dagaaladii sokeeye ee dalka ayaa haatan lagu dayactiray iskaashi bulsho oo u dhaxeeya reer Shangani iyo dadweynaha Soomaaliyeed. xildhibaano ka tirsan dawladda, gudoomiyaha gobolka Banaadir, wasaaradda arrimaha diinta iyo qaar ka mid ah dadweynaha degmada Shangani ayaa ka qayb galay maanta munaasabad qayri ah oo lagu daahfurayay dhismaha masjidkan cusub ee jaamaca. ugu horeyn maamulka masjidkan Siciid Cabdulqaadir Siciid ayaa ka sheekeeyay marxaladihii uu soo maray dhismaha masjidkan. markaan shaqada ka bilaabeen waxay ahayd 2018 bisha labaad dumiska markaan ku bilaabnay alxamdulillah belindigii aan bilaabnay waxaa soo baxay masjid kale oo hoos ku jiro. marka masaajidka waxaan sameeynay hadda waxaan saaranahay masjid kale hooskeena ku jiro. waxaan ku dadaalnay aasaarta inaan dhoorno, waxaana ka cabsan jirnay inaan hal dabaq aan dhisno. waxaan dhisnay 2 dabaq iyo aasaar iyo qaybtii meedka lagu dhaqaayay iyo weysaqaadkiyo oo kumbaleet ah. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Filish oo kelmad ka jeediyay munaasabadaasi ayaa mahad u celiyay dadkii dhaqaalahooda ku bixiyay masjidkan, wuxuuna sheegay in ay soo nooleeyeen aasaar qadiim ah. dhanka kale isna waxaa madasha ka hadlay wasiir ku-xigeenka arrimaha diinta ee xukuumadda Soomaaliya. beedka ee quruxda leh aanan inta ka hor aanan anaga kuleyba sida hadda dhismaha markii laga reebo taariikhdii uu lahaa ka sokow sida diyaar garowga hadda oon rajaynayno insha Allah in aad looga faa'iideysan doono mustaqbalka masaajidada dib u dhiska dalka kuleyba laga igaleel doono. ayalay waa meesha kaliya hadda laga xasuustay in la og yahay in la socdo, in aan soconno oo guri kale oo ku sii socono meesha aan u mataqaanaa wax u dhiganayna inaan fahanno. runtii waxa ay nooleeyeen inay masjid dhiseen الله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد أوليه كسكو وحي نوليين آثار مسجد أو قديم أو بابا سنا اللي كان في النظر أهنا أي سورة قلعيد haddii uu sidiisa ku sii raago inay dadka hadda jira ee waalan ee dhulboobka ah ay dabaqka kor dhistaan ayaa suuragal ahaan lahayd. walaalaha Soomaaliyeed marka ee masjidkan dhisay inay masjid inay dhisaan kaliya ma ahane waxa way magaaladii degmadii Shangani ee qadiimiga ahayd oo ay nooleeyeen masaajidkii oo ay dhiseen iyo masaajidkii qadiimka ahaa oo ay difaaceen oo gardarooyin badan oo masaajidda ku dhacay oo ku dhici lahaa ay ka badbaadiyeen. intaas ayay sameeyeen, waa uga mahad celinay. oo ku yaala degmada Shangani waxa uu ka mid yahay masaajidda leh taariikhda faca weyn maadaama la dhisay muddo hadda laga joogo qarniyo badan. masaajidkan oo ku burburay dagaaladii sokeeye ee dalka ayaa haatan lagu dayactiray iskaashi bulsho oo u dhaxeeya reer Shangani iyo dadweynaha Soomaaliyeed. xildhibaano ka tirsan dawladda, gudoomiyaha gobolka Banaadir, wasaaradda arrimaha diinta iyo qaar ka mid ah dadweynaha degmada Shangani ayaa ka qayb galay maanta munaasabad qayri ah oo lagu daahfurayay dhismaha masjidkan cusub ee jaamaca. ugu horeyn maamulka masjidkan Siciid Cabdulqaadir Siciid ayaa ka sheekeeyay marxaladihii uu soo maray dhismaha masjidkan. markaan shaqada ka bilaabeen waxay ahayd 2018 bisha labaad dumiska markaan ku bilaabnay alxamdulillah belindigii aan bilaabnay waxaa soo baxay masjid kale oo hoos ku jiro. marka masaajidka waxaan sameeynay hadda waxaan saaranahay masjid kale hooskeena ku jiro. waxaan ku dadaalnay aasaarta inaan dhoorno, waxaana ka cabsan jirnay inaan hal dabaq aan dhisno. waxaan dhisnay 2 dabaq iyo aasaar iyo qaybtii meedka lagu dhaqaayay iyo weysaqaadkiyo oo kumbaleet ah. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Filish oo kelmad ka jeediyay munaasabadaasi ayaa mahad u celiyay dadkii dhaqaalahooda ku bixiyay masjidkan, wuxuuna sheegay in ay soo nooleeyeen aasaar qadiim ah.
dhanka kale isna waxaa madasha ka hadlay wasiir ku-xigeenka arrimaha diinta ee xukuumadda Soomaaliya. beedka quruxda leh aanan inta ka hor aanan annaga kulleyba sida hadda dhismaha marka laga reebo taariikhdii uu lahaa ka sokow sida diyaargarowga hadda oon rajaynayno insha Allah in aad looga faa'iideysan doono mustaqbalka masaajidada dib u dhiska dalka kulleyba laga igaleel doono ayay waa meesha kaliya hadda laga xasuustay in la og yahay in la socdo in aan soconno oo guri kale oo ku sii soconno meesha aan u mataqaanaa aan wax u dhiganayna inaan fahanno runtii waxa ay nooleeyeen inay masjid dhiseen Allah subhanahu wa ta'ala wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada ulayhi kasukow waxay nooleeyeen aathar masjid oo qadiim oo baaba'sana xilligan fidnada ahna ay suuragal ahayd haddii uu sidiisa ku sii raago inay dadka hadda jira ee waalan ee dhulboobka ay dabaqka kor dhistaan ayaa suuragal ahaan lahayd walaalaha Soomaaliyeed marka ee masjidkan dhisay inay masjid inay dhisaan kaliya ma ahane waxa way magaaladii degmadii Shangaan ee qadiimiga ahayd oo ay nooleeyeen masaajidkii oo ay dhiseen iyo masaajidkii qadiimka ahaa oo ay difaaceen oo gardarooyin badan oo masaajid ku dhacay oo ku dhici lahaa ay ka badbaadiyeen intaas ayay sameeyeen waa uga mahad celinayna